wafdi ay hogaaminayaan wasiirka maaliyadda Hirshabeelle taliyaha ciidanka lugta iyo suldaanka beelaha halkaasi dega ayaa booqday saaka ciidka oo shalay galab laga saaray qawaariijtii halkaasi gambaadka ka dhigatay maalmihii la soo dhaafay. wasiirka maaliyadda Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa bogaadiyay ciidanka xoogga iyo kuwa xaquudirirka. cadowgeena maanta waa jilacsan yahay wuuna jabay halkan maanta aan taagannahay oo leeyahay ciidka waa deegaan istiraatiiji ah oo ay sahmiyeen oo ay dhufiisi ka qoteen oo aan qof bini'aadan ah meel uu ka gili karo aysan u banaanayn. laakiin maanta waxaa cadaata laba arin. waxaa cadaata geesinimada ciidankeena iyo ciidamada deegaanka geesinimadooda iyo daacadnimadooda iyo kartidooda waa cadaatay. waxaa kaloo cadaada fulaynimada iyo doqonnimada ay leeyihiin nimanka khawaarijta la yiraahdo. waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. mudana madaxweyne aad u mahadsan tahay si guud dagaalkan dalka iyo dadka looga xoreynayo waa kaaga mahad celinaynaa dadaalka aad gelisay iyo waqtiga aad gelisay. laakiin maanta waxaan rabaa inaan mahad kale ku diro markii aad Korneel Dayax u soo magacaawday taliyaha ciidanka lugta ee dhulka Soomaaliya. madaxweyne ma khaldamin ma gefin waad waafaqday. taliyuhu wuxuu mudan yahay maanta halkaan in lagu siiyo bilad geesi halkaan in lagu dalacsiiyo oo mudan yahay. taliyaha ciidanka lugta gaashaanle sare Dayax Cabdi Cabdulla ayaa sidoo kale ku bogaadiyay xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirirka ee godadka u galay qawaariijtii halkaasi gambaadka ka dhigatay. ilaahay baa mahadle deegaankii maanta ciidka oo ahaa dhufays weyn ay nimanka argixisada meeshan ku lahaayeen waa xoroobay. marka ilaahay ayaan u mahad celinaynaa awoodaas ilaahay baa iskale. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed oo hawlgalkan ku jiray muddadan idinkuna waa mahadsantihiin. dhaartii waxaan hubaa aad u dhaarateen iyo waajibkii aad lahaydeen inaad gudateen aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. dadka deegaanka iyo ciidamada deegaanka waxaan leeyahay insha Allah taala webiga in inoo ballan hadii ilaahay idmo waa inaad webiga dhaqaaqdaan webiga aad tagtaan iyo ilaa Shabeellow iyo meelaha kale wax ku harsan yihiin laga bilaabo saacadaas hore u socda dhaqaaqa. dhammaantiin waa mahadsantihiin dadka deegaamadan waxaan leenahay deegaankiina ilaashada iyo niman haba oo madaxa inii soo duuban oo haba meesha keenayna ka degin. waxaan leenahay ilaashada deegaankiina hubkiina qaata dagaalama iska cishan nimankan mar dambe sayso ugu soo noqon deegaamadan. Suldaan Daahir Axmed Gaabow ayaa ugu dambeyn fariin kale u diray kooxda qawaariijta ee Al-Shabaab. waxaan rabaa shabaabow dalkan dirisna nagala mihidiin soohinana lama lihidiin war xoolana nagama dhaxeeyaan dadna nagama dhaxeeyo dalna nagama dhaxeeyo magacna ma lihidiin dadaan sumad lahayn oon magac lahayn dalka Soomaaliya inuu dhibaato ka geystana la aqbali maayo. dawladda Soomaaliyana aqbali mayso dadka Soomaaliyeedna aqbali maayaan. warna dhaafa oo haddaad diin baana sheegaysiin ummadda Soomaaliyeed wayda nacday ee naga taga. war anaka shacabaan nahay anaga afka shacabkan ku hadlaa dhaqanaan nahay shabaab iyo anugu waa isdeynay waana isnacna. qawaariijtii halkan gambaadka ka dhigatay maalmihii ugu dambeeyay waxa ay doonayeen in baad ay ka qaadaan beeraha Califool dheere iyo sidoo kale meelaha ku teedsan. Axmed Salaad warbaahinta qaranka ciidka.